Bixinta Sharciga Deganaanshaha Rasmiga ee Sweden oo meesha laga saarayo. Halkani waa deersame iyo anigoo Ahmed Xasan. Dowladda Sweden iyo xisbiga SD ayaa ku tala jira in meesha laga saaro bixinta sharciga deganaanshaha ee dalka iyadoo taasi beddelkeeda qof walba la siinayo sharciga deganaansho oo ku meel gaar ah marka uu helo qabilaad qaxootiga ama mid kale. Heshiiska oo horay u gaareen dowladda iyo xisbiga SD ayaa lagu magacaabaa Tido waxaana xukuumadda ay hadda ku tala jirtaa in sharcigan la hirgeliyo islamarkaana laga bilaabo guud ahaan dalka. Qofka dacwad ahaan lagu keeno waddanka midka qaxootig ahaan loo soo qaado iyo kuwa kale ee dalka ka hela magangeliyo ayaa dhammaantood helaya sharciga deganaansho oo ku meel gaar ahaan ah marka uu bilowdo sharcigan. Sharcigan cusub ayaa ah mid saamayn xooggan ku leh qaxootiga cusub maadaama qofka dib looga ceshan karo sharciga haddii ay soo hagaagto xaaladda waddanka uu ka soo tegay ama uu dembiyo ka galo waddanka. Shaki weyn ayaa galaya qofka qaxooti ka soo raadsada dalka Sweden sida uu qabo Gabriel Donner oo ku takhasusay dhanka sharciyada.